السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بمشاج ميل والباد joogtiin kusoo dhawaada janalkeena farxi filsan official haduu eebaweyne inoo idmo maanta waxaa idin wadaa another video kaloo cusub insha Allah ha naga hilmaamin shareta commentiga subscribe-ka inta wixii inoo yihiin dhiirigelin insha Allah la socod wanaagsan maanta waxaan idin wadaa video kaloo xiiso badan insha Allah maanta waxaan idin wadaa faa'iidooyinka ee u leedahay dhanka caafimaadka afakaadhada insha Allah isla socod wanaagsan waxyaabo badan isla meel dhigi doonaa waxyaabo badan idin soo gudbin doonaa idinkana ha inaga hilmaamina subscribe-ka kunka wax yar noogu dhiman wili waa dhankiina cilad ka jirta ma garan karo marka insha Allah noo fududeeya si aan kunka u gaarno insha Allah maanta waxaan idin wadaa faa'iidooyinka caafimaad ee u leedahay dadka qofka bini'aadanka ah afakaadhada sidaan u ognahay afakaadhada waxa ay ka mid tahay miraha qaababka kala duwan loo isticmaalo haday noqoto cabitaan ahaan iyo haday noqoto in cuno ahaan loogu isticmaalo way kala duwan tahay siyaabaha loo isticmaalo haday noqoto in care skin ahaan loo isticmaalo hair skin ahaan in loo isticmaalo in cunada rootiga iyo waxyaabaha la marsado saliid ahaan loo isticmaalo iyo in cuno ahaanba loo isticmaalo way kala duwan tahay siyaabo kala duwan ayaana loo isticmaalaa afakaadhada waxaa ka buuxdo nooc kasta oo nafaqo ah laakiin waxay qani ku tahay vitamins badan sida vitamin A vitamin E iyo noocyo badan oo vitamin B vitamin B2 vitamin B3 vitamin B5 iyo vitamin B6 sidoo kale afakaadhada waxaa ka buuxdo macdan aad u fara badan sida potassium iyo magnesium sidoo kale afakaadhada waxaa ka buuxdo maado loo yaqaano beta-carotene oo muhiim u ah afakaadhada waxaa ka buuxdo nooc saliid ah oo aad u wanaagsan taa oo loo yaqaano omega 3 fat acid haddaba waxaan soo qaadan doonaa dhowr qodobo oo faa'iido caafimaad ee u leedahay iyo meesha ay u wanaagsan tahay afakaadhada waxay sare u qaadaa caafimaad qabka wadnaha boqolkii gram oo afakaadho ah waxaa ku jirta 76 miligram oo maadada loo yaqaano citro waxayna joogteysaa kolestaroolka jirka sidoo kaleente waxay sare u qaadaa caafimaadka indhaha waxaa ku jiro maadooyin loo yaqaano lithium iyo stathium taasoo sare u qaada caafimaad qabka indhaha waxayna sameysaa qaab ka mid ah indhaha waxayna ka hortagtaa dhaawacyada ka imaada qoraxda haddaba waxay sare u qaadaa caafimaad qabka lafaha oo waxayna ka hortagtaa osteoporosis oo waxay ka hortagtaa in ay lafaha noqdaan kuwo daciif ah osteoporosis waxay ka dhacdaa dumarka dhalmada baxay ama dhalmo gooyay afakaadhada waxaa ku jirta vitamin K waxayna sare u qaadaa ama ku bixisaa lafaha vitamin K waxa ay soo nuugtaa calcium oo aad muhiim ugu ah lafaha 4 waxay sare u qaadaa caafimaad qabka cunuga uurka ku jira waxaa ku jiro maado loo yaqaano folate waxay sare u qaadaa caafimaadka hooyada uurka leh 5 waxa ay ka hortagtaa niyad jabka 6 afakaadhadu waxa ay sare u qaadaa soo deynta ogxanta waxayna dumarka ka caawisaa deymada ogxanta intaasi waxaan kusoo afmeereynaa barnaamijkeeni aan kaga hadlaynay faa'iidada ay u leedahay caafimaad ahaan afakaadhada inta mid lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaano Allah ha inaga hilmaamin shareta commentiga subscribe-ka intaba waxay inoo yihiin dhiirigelin insha Allah kan mid lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaano Allah السلام عليكم.